labaatankii sano ugu dambeeyay Qatar may joogin Soomaaliland. There are visits, there are some religious people booqasho noogu yimaada way jiraan iyo wadaado biso masaajidada iyo malcaamadaha. Laakiin xiriir ganacsi oo naga dhaxeeya ma jiro. Relations with us. They waxay are ka hor yimaadeen blocking heshiiska Berbera. the DP World Agreement with Berbera. sidaad As you know, ogtahay and everybody knows dhammaanna there's a la og conflict yahay now in the dowladaha Gulf khaliijka states isqabsi ayaa ka dhaxeeya between siiba Qatar Qatar and iyo the United Arab Imaaraadka iyo Emirates Sacuudiga. and Saudi Arabia. So, markaanu arrimaha when we barbar compare dhigno to iyo our danahayaga interests iyo and our aragtideeda strategic istiraatiijiyadeed vision, waxaanu we decided go'aansanaynaa inaanu to support taageerno Saudi Arabia and Sacuudiga United iyo Arab Imaaraadka. Emirates because our economy, maxaa our yeelay business ganacsigayaga depends on dhaqaalahayaga Saudi Arabia waxa and uu the ku United tiirsan Arab yahay Emirates. Sacuudiga All iyo our Imaaraadka. business are in Dubai. dhammaan ganacsigayaga oo dhan Dubai buu 100%. jiraa boqolkiiba All our boqol investment maalgashigayagu in waa Dubai. There is no single Somali nin qura oo reer land Somaliland businessman in Qatar. oo ganacsada oo jooga Qatar ma There jiro. are some people who way work jiraan there, qaar halkaa ka especially for shaqeeya their arms. siiba la shaqeeya Young, ciidankooda they iyo recruited. kuwa da'yar But oo ay ciidameeyeen. we are in this side. Qatar waxay ka Qatar soo is horjeedaa against the heshiiska agreement DP of World DP ee World Berbera Berbera. balse But wax they have saameyn oo ay influence. They nagu cannot yeelan have karaan relative ma influence jiro. on them. They are ma against us, awoodaan but they inayna have soo no effect weeraraan on us. They cannot attack us. mana karaan They inay cannot soo interfere to our farageliyaan people. arrimaha shacabkayaga Even if they try wax kastoo their ay best. sameeyaan si They fiican are aware baan of ugu that. baraarugsannahay Now they arrinkan are an enemy of iyagu this hadda agreement. heshiiska waxay u yihiin cadow. waraysigan oo ay warbaahinta Imaaraadku la yeelatay madaxweynaha Somaliland waxa uu tarjumay af Soomaali Cabdimalik Sheekh Muuse